si looga hortagi lahaa dhiiggaas meesha ku daadanayo. Waxaan arkaynaa qof kastoo siyaasi ah wuxuu arkayaa kursigaas. Shacabka uu hadda sheegay Ugaasnuur Shaakow daruufaha jiro meesha jiro waan arkaynaa. Marka taasaan xoguhu qaadan weynay. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Magacayga waa Suldaan Warsame, Suldaan Ibraahim, Suldaan Cali Ibrow. Waxaa mahad Ilaahay kasoo waxaan caawa inta u fadhinaa shirkan jiraayad aan u qabanay xaaladaha muddooyinkan ka jiray Koonfur Galbeed. Qeyr Allah siiyo odayaasha dhaqanka uu hogaaminayo chairmanka gudoomiyaha golaha odayaasha dhaqanka Suldaan Buube ayaa isbuuciyadanba waxaan wadnay consultation iyo wada hadalaan wadnay xaaladaas anagoo iska wareysanayno. Marka waxaa dhacday in maalintii ciida ahayd Jumcaha ayaa shir waxa isugu wacay suldaanka odayaasha dhaqanka ee ka soo jeeda Koonfur Galbeed ee ku sugan magaalada Muqdisho. Jimcihii waxaan soo nimid casirkii ayuu ciid ay tahay ayaan soo nimid ilaa habeenkii 3 habeen aan wada fadhinay. waxaa la isku waafaqay xaaladda meesha ka jirto inaan aragno sida suldaanku u sharxay madaxweynaha dowladda federaalka Xasan Sheekh Maxamuud iyo gudoomiyaha baarlamaanka Shaadan oo ah maaragtay gudoomiyaha baarlamaanka dalka isla markaasna deegaan doorashadiisa ay tahay Koonfur Galbeed. Kadibna aan raadino madaxweynaha Koonfur Galbeed Cabdicasiis Xasan Maxamed Laftagareen. waxaa dhacday marka waxaan la kulanay sida suldaanka sheegay habeenkii aan raadinay madaxweynaha oo Jimcaha ee Sabti soo galeysay. Maalinta Sabtiga maalinta Jimcaha habeenkii Sabti soo galeysay. isla Sabtigii galabtii 10 saac madaxweynaha la kulanay Xasan Sheekh Maxamuud si fiican oo qaabilay anagoo 18 oday dhaqameed ee Koonfur Galbeed ka soo jeedo. waxyaalahan ku codsanay sida suldaanka sheegay waaye in xaaladaas anaga nagu simo muddo 4 casho ah. madaxweynaha aad u soo dhaweeyay isla markaan ka soo baxnay waxaan maqribkii aan la kulanay gudoomiyaha baarlamaanka Shaad Madoobe intaas in la mid aan ka codsanay asigana anagoo og in xaalado badan iska jiraan oo siyaasado iska cakaran. gudoomiyahan aad iyo aad ayuu soo dhaweeyay isla subaxii ku xigtay 4 saac subaxnimo habeenkii ayaa wuxuu Suldaan Buube la xiriiray gudoomiyaha baarlamaanka Koonfur Galbeed Cali Saciid Fiqi oo warbixinta siiyay una sheegay in madaxweynaha u baahannahay Cali Saciid qeyr Allah siiyo dadaalay asigana wuxuu xooga saaray madaxweynaha Laftagareen iyo annaga inaan wada kulanno communication telephone aan ku wada hadalno. suldaanka la hadlay Cabdicasiis Maxamed Laftagareen madaxweynaha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed aad iyo aad ayuu soo dhaweeyay baaqaas. marka anagoo og xaalado kale inay jiraan dhaqdhaqaaq ciidan labada dhinac inuu jiro ayaa waxaan codsanay waxay ahayd maalinta Sabtiga ayaa madaxweynaha la kulanay waa Axad iyo Isniin 2 casho la joogaa. 2 casho wuxuu Ilaahay noogu hirgeliyay inaan waxyaalo badan aan soo dhaweyno. arinku weeyna waxay tahay in labada dhinac ay noqotay wasaaradda arrimaha gudaha federaalka waraaq inay soo saartay asi waraaq uu soo saaray guddiga doorashooyinka ciladahaas in maaragtay culays badan naga soo koray. odayaasha waxay xooga saareen aan ku laabanay madaxweynaha dowladda federaalka Xasan Sheekh Maxamuud. waxaan ka codsanay in odayaasha dhaqanka Koonfur Galbeed loo sii access inay isu keenaan reer Koonfur Galbeed gogolna ay dhigaan baydhabo mucaarad iyo muxaafid reer Koonfur Galbeed isugu yimaadaan xukuumadda Cabdicasiis Laftagareen uu hogaaminayo iyo mucaarad muxaafid odayaasha isu keenaan walaayadiina lagu wareejiyo odayaasha kadibna gogosha ay dhigaan dib u heshiisiin meesha ay ka sameeyaan reer Koonfur Galbeed doorashada isku raacaan oo technicality nooc kasta noqoto in madaxweynaha Xasan Sheekh uu nala qaato. waxa uu weyn ay tahay si looga hortagi lahaa dhiiggaas meesha ku daadanayo. waxaan arkaynaa qof kastoo siyaasi ah wuxuu arkayaa kursigaas. shacabka uu hadda sheegay Ugaasnuur Shaakow daruufaha jiro meesha jiro waan arkaynaa. marka taasaan xoguhu qaadan weynay annaga waxaan ka mid nahay odayaasha 135 dowladda federaalka soo dhisay u soo dhawr adeegay dad qaarkood god ugu jiraan Koonfur Galbeed dadkii soo dhisan ka mid nahay. marka anagu arkayna Koonfur Galbeed indhahayna shanta ah inay meesha ku burburto waxaan ogolaan karin cidna aanan ka yeeleynin. ilaah ka sukow waxaan ilaah ka bareen inuusan maaragtay ilaahay nagu ceebeen. dadka hadda isku haya siyaasadana waxaan ka codsanay labada dhinacba dowladda federaalka waa la hadalnay Cabdicasiis Maxamed Laftagareen waa la hadalnay oo Koonfur Galbeed labada madaxweyne aad iyo aad u soo dhaweeyeen taladeena tusaaleheen. shucaayo badan ay jiray waxaan ku dadaalnay in shucaayadaas si loo safeyn karo loo safeeyo. wax kastan waqti bay qaadanayaan. berito waxay dhici kara Allahu a'lam ilaaha og laakiin ballanqaadka ee naga ballanqaadeen waxaa ka mid ah in odayaasha gogol ay dhigaan. hadda u dambeysay madaxweyne Cabdicasiis u dambeeyay hadda uu Suldaan Buube la hadlay madaxweyne Xasan Sheekh maanta la hadalnay labadan aad soo dhaweeyeen. marka waxaan rajeynayaa insha Allah berito wixii ka dambeeyay inaysan wax dhaqdhaqaaq ciidan dhicin. Cabdicasiisna uu meesha hadda taagan yahay uu taagnaado dhaqaaq kale uu sameeyay. xukuumaddan aysan dhaqaaq kala sameyn odayaashana ayuu hogaaminayo mucaarad muxaafid
يقف كستو دنينا كرسياس بيدبط تجان جوجل دجان دتك إسو كانان ولا تشتان مركا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. kusoo dhawaada isbitaalka Shaafi hoyga tayada aqoonta iyo daryeelka bukaanada. Isbitaalka waxaa diyaar kuugu ah in ka badan 20 dhakhtar oo takhasus kala duwan leh kuwaas oo khibrad iyo waayo-aragnimo dheeraad ah u leh adeegyada ay ku siinayaan. Isbitaalka wuxuu soo kordhiyay adeegyo cusub sida qaybta la tacaalida kansarka oo si heer sare ah loo qalabiyay, qaybta daweynta kaliyaha iyo kaliya dhaqista, qaybta MRI, CT scan iyo raajada naasaha, shucaaca burburiya dhagaxaanta kaliyaha, ICU casri ah, tubooyinka endoscopiga iyo bronchoscopiga. isbitaalka wuxuu fuliyaa qaliimada casriga ah ee laparoscopiga iyadoo la isticmaalayo qalabkii u dambeeyay, sidoo kale qaliimada jajabka daamanka iyo wajiga, qaliimada lafaha iyo bedelista jilbaha. isbitaalka wuxuu markii ugu horeysay dalka ka bilaabay qaliimada aan dhaawac lahayn ee lagu sameeyo hanaanka ERCP ee lagu xaliyo dhibaatooyinka marinada xameetida iyo tubooyinka ganaca. Shaafi Hospital, xanuunkaaga ku sheega afkaaga hooyo.